kusoo dhawaada barnaamijkan oo kala socotaan telefishinka Universal barnaamijka waxaa marti noogu ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kusoo dhawow telefishinka Universal aad iyo aad baan u mahadsantahay waraysigan aad naga aqbasho aad baad mahadsantahay su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxa weeye madaxweyne muddo 4 bilood iyo dheeraad imika xilka haysay wala xaaladda guud ee Soomaaliland صور نقصي بسم الله الرحمن الرحيم حالة الجودة سواء نرته ونكسنت مركورة ونبض وحبنا نود ونوريبا شيدا إن كنا الهجس كأفريقيا واسكه البدي مركورة الجودة هوا ونبض رواب كنا وادوتو أبار كورل بان هيسو إن بدسو شتتي ودل كورن عام قاهين بشي جانوري آخر كذي وحنو إعلامنا أبار ساميسي مليون يستيد بقرو كل أوقف وكل واحد ضامري إلى أصدح بقرو كانوا قيسوا مركها حوالينا كنا معده ونبهنا إن مال ديتشوا وحنا قبته أي قرشوا هاي أبرتها سوحي بدد حيبها يجوا ولا بارجا وسند يصول إلى الله صقري كامرت حول داق شرينا ده حول كل ما شريه أي أبرتها إلهي مهدي بدن كيد يقول كربا حلي هكذا بدنا هذا ميرها قال ولي مقارن لكن ذلك أنتي سبضان دل لما وقارن وسيتشرن قوة أنا ورقارن روبك مرضي روبك دورت ورقة وش وبنادم بيوهري وحول بيوهري ولذلك ما صوب حلو وقت كنا مقارن لكن دوار تشوي إنه رحمتك إلهي بها لك ما شيء مركا هدينا مضنا الله هيو روبنا الله هيو تجرشنا الله هيو wixii kale waa maamul nin deeq qoys maamulaya iyo nin reer iyo arigiisa iyo geeris maamulaya iyo mid beertiisa maamulaya mid dukaankiisa maamulaya iyo qaranka maamulaya sabana maamulkana waa socdaa meel walba oo wanaagsan alxamdulillah aad iyo aad baan wanaagsan mudane madaxweyne dhowrkii sanadood ee tagay roobabku way yaraayeen waxa la sii saadaalinayaa in sanadkan haddaan roob wanaagsan la helin in dhibaatada cunto yaraanta iyo abaartu ay aad waxyeelo u yeelan doonto maxay idinka meel yaala horta waa muuqataado abaartu markaan dib uga taariikhayno 20 sano mar bidix jirtay ama 30 sanadood ama 15 sanadood abaartii Hiblaayaa loo jiray marka muddo la barwaaqo jiray way soo koobantay waa soo dhowdahay marka waxa inooga meel yaala mar haddii cimilada isbedeshay oo sida ay u miisaaneyd nolosha roob in hela daaq soo baxa xoolihii oo daaq ku filaado xoolihii oo la manaafacadsado nolosha saas oo badnayd yar baa beeraha ku tacaysay oo wax ka soo dalkeena ka taqaanay farsamadana waaba inuu yahay oo Soomaalidu farsamada ma taqaan waxa inta dheer ilaahay wuxuu nasiiyay bad iyo bari badu khayraadkan ama wax la cunaato xoolo ah ama macdan ha noqoto ama manaafacaad kale oo dalxiis la ha noqoto way ka manaafacaad badan tahay bari waayo ilaahay de adduunyada inteeda badan biyo ka dhigay marka bad faa'iideeda leh laakiin dadkeena Soomaaliland iyo badanka dadkan Afrikada ku nool bariga oo dhamay aqoon uma laha sida bad looga faa'iideysto waxa ay jirtaa ilaahay dhulka dushiisa iyo gudihiisaba min inoogu abuuray haddii dushii biyihii iyo daaqii ku abuuray hoostiina macdintii ku jirta marka waxa inoo qorshaysan dee ilaahay nimcuuna siiyay nimcadana tacab baa leeyahay ku tabcan biyaha inuu helo roobka yar inuu ka faa'iideysano oo biyina qabano waxaan beer karana beerano waxa inoo qorshaysan in xoolaha sidii loo hayn jiray bedelo oo xoolo tira yar oo manaafacaad badan oo la maamul kara inuu sameeyo halkii 100 halaad ama 200 halaad oo ninka wata kabala yahay oo arrada yahay oo laga yaabo cuntada uu cunaa 3 bilood dhow aanu biyaba araga koobka ah inta ay caanaha ka maal qulaatay inuu bedelo xoolaha nafis xoolihii ay naqaanay aanu ku soo korreegay ugu magac weynaana de xoolo badan oo kale inaan dhaqan jirin baa jiro oo faa'iido imika yaano digaaga kamid oo hilibna leh kuna leh kana hawle marka waxaan u baahanahay inaan maamulkii xoolaha wax ka bedelo
inaynu badii barano dadkeena badda ku jahayno in biyaha yar aynu helno tacab beer iyo biyaba aynu hantino ay markaa hawshii badnoon fikreen u baahno saas aanu qorshahaas dadku ku jahaynayna sanadkana aad buu xbeeraya dadku iyagoo taa ka duulaya mudane madaxweyne haddaan su-aal kale kaa weydiiyo muddada kooban ee aad xilka haysay muddo aad u dheer baad siyaasadda ku soo jirtay waad soo kifaaxday baa la odhan karaa madaxweynenimadu ma ka hawl badantahay sidii aad moodaysay ha hawlwada markaad gudaheeda gasho usbaa ka soo baxaya inkastoo sanad intii inaad Soomaaliland jirto dee aan ku jiray dadka talada hayo laakiin marna waa marka dawladdu ku adigu tala bixinayso marna waa marka adiga wax walba saaray marka madaxweynaha Soomaaliland awoodo badan baa ku urursan oo dastuurku xirar badan buu saaray oo fara badan wada baahan jawaabtooda waqti qaadashadooda marka way ka culays baan tahay waayo qaranka dhammaad ku soo eegaya qarankuna marxalad ugu maraya qarankeenu Soomaaliland waa kor dhaqaaleed waa liita wadada adduunyada waa u liidana dadka wayna soo kariya waa laba ma haysana aqoonsi oo ka wax kama mahanood hay'adaha caalamiga banka iyo adduunyada toos loo xidho saddex waxay nagu adag inuu qofkii socdo taabto maaratay hawshiisa qabsado passport ma leh kamar naga dhaxan jiray waa isna waa la mid inoo dhaamo haddii kalena maba isticmaalaba marka waxaynu haysnaa boqolkiiba 70 populationkeena oo da'yar ah 30 jirkeer oo mustaqbal ifaayo doonaysa oo energy leh oo xoog leh oo ka doonay inuu qeyrkiisa tartamo dee qofkay soo eegayaan inuu qeyrkii gaarsiiyo waa adig iyo durfaas oo xariir marka waxa soo culaysay way culastaha madaxweynuhu culusi dawladdii aad samaysay sida la qiyaasi karayo dadka umay wada cuntamin rag fara badan oo xisbigaaga miisaan weyn ku lahaa oo la filayay inay jagooyin wanaagsan ku soo bixi doonaan ayaan saaxadda lagu arag rag dhalinyaro badan oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin khibradii loo baahnaa ma laha ayaa ku jiro ku badan sidaad u aragtaa taadigu dawladdeeda in laga wada noqdaa suurtagal ma maaha ma dhici karto adigu iyo anigu si wax ma wada fikiro waxaad kula toosan baan la qalban markaan anigu tayda soo saaro dabcan faalad ka bixinaysa marka in dadku raali ka wada noqdaa ma gaari kartaa iyada kolka waa runtaada rag badan oo xisbiga ka mid ahaa oo dawladda kulmiye hore ka mid ahaa oo miisaankooda iyo garashadooda iyo aqoontooda waa ka maqan waxaan soo baahanahay in ka yar la soo koriyo anigu waxaan ka duulay fikradda ah inuu dalku u baahan yahay dhalinyarada waliba wax baratay ee duruufahan imika ah aqoontooda iyo koskooda ku soo koray inaynu soo gelino saaxadda hogaaminta waayo ragga aniga iyo age-kayga iyo dee waa rag waaweyn muddo badan saaxadda ku soo jiray dee waxaa loo baahan yahay in generation dambe lasoo tababaro marka waxaa la isugu miisaamay boqolkiiba qayb ka mid a dhalinyarada xoogan qoladii hore qayb ku jirta oo waa araggii la leh marka waxaan u badiyay dhalinyarada oo iyagoo aanu eegay inay aqoon leeyihiin wasaaradaha ka shaqeynaya waayo in badan waxaan isleenahay waxa inagu badan siyaarahan u qiimayno hogaaminta waxa ugu badan qabyaaladdu ma soo saarto qofkii iyo shaqadiisa u doonaysay laakiin political influence bay yeelata oo qofku wuxuu leeyahay wasiirku waa qolaho anaga ma uu didaya marka waxaan doonayaa inuu tuso mesela wasiir caafimaad oo aqoonta caafimaad leh wasiir waxbarashada aqoon leh wasiir bank ninkayo oo aqoon leh dadna qofkii aanu ka didin kuwa uu aqoonta isaga gaadho marka uu guuro war malaha reerka waxa ka wanaagsan mudane madaxweyne markaa tabeelaha way noo iman doonaa laakiin haddii su-aal kale aan kaasii weydiiyo taydii hore raggaa miisaanka lahaa markaa aad ka tagtay ma u cuntantay baad odhan lahayd mise sidaad adiguba sheegtay fartooda eersadeen way cuntamaysaa raggan waa arag waxbay dhisayaan qaran bay dhisayaan way tabcayaan haddii lagu dhaado xilka maanta u kaadi dee waa adoo bannaanka jooga xilka dhistaa taana waxaa ku tusisaa iskaba dhaaf xisbiga iyagoo qoran maaha Soomaaliland waa sawir qantay imika madaxweynayaasha nool daahir yar ka mid yihiin Axmed Silaay ka mid yihiin
iyo saddex madaxweyne ku-xigee xasan ciise cabdiraxmaan oo cali axmed yuusuf yaasiin way nala dhiseen qaranka waa intii soo bedeshay way soo garab taagan wasiirada shalay bedelo kulmiye ah way wada garab taagan hebel kasta soo qaad dhankooda ka hayaan mashkaladu maaha maanta haddii la xil lahayn waayo inuu qofkii dee qaran inay hawsha gabay iminkaa ugu ixtiraam baday markuu dibadda joogo qofku waayeli mustaqbalkii hoo maxaa la weydiinaya oo toosi ila maamulaya xisbi ahaana saasaana dhammaantood haree ka taagay raggaa aad wada tilmaamaysa hebel dhammaantood waa garab taagay mudane madaxweyne faallooyinka kale ee laga bixinayo dowladdaada waxaa ka mid a markay timaado xagga beelaha inaanay isu miisaanayn oo maadaama doorashadii aad loogu kala qaybsamay aad ku soo baxday aad adiguna xoogga saartay beelihii taageeradaadu ay u badnayd dooda dareen noocee baad ka bixin lahayd waxaan ka bixinayaa adigu tiriyo kaabineedka intaad soo qaado tiriyo haddaanu balanskii reeruhu iyo aan la isu miisaamin dee waa runtaada faalladaas hadday isu miisaaminna tiraabay dee taalla meeshii waa wax la yaqaano la tirinaayo markaa la isku haysta beeruhu ma miisaano tirada waxa weeye xisbiyada markii la soo baxo ee xisbi soo baxay inaga dhaqankeena dad walba waa dimuqraadi laakiin dad walba haddana wuxuu dee cultural iyo dhaqan u gaara inagu marka soo baxna dimuqraadiyadda haddana dowladda dadka waa la wadaajiya si loo wada gaaro waa xeer aan iskaraana marka xeerkii beeruhu ma jabin waa miisaamay waxaa laga yaabaa ninka faalloonaya imaagaya wuxuu ka yaabo inuu leeyahay ciddii xisbiga kala ahayd maadkeeni anu markaan baalaskareeyey miisaanka gobollada ee dowladda gobollada u qaybiyey dee xisbigii raggii gobollada xisbigay ka shaqeynay baan ku daray markaa dhaliisha haysuwinin ha isku dhumanin waxaad tiraahdaa maad kusoo daran xisbiyadii kale taas waa run markay dadka arrimaha ka faalloonaya madaxweyne arrintan ka hadlayaan ta xisbiyada kama hadlayaan oo dabcan nidaamka Soomaaliland waxa weeye xisbiga dee guuleysta ayaa dowladda soo dhisa laakiin tabeelaha markay ka hadlayaan ayaa ay leeyihiin isoo miisaan dee baxsaab aad u soo saar ilaa boodar taqaanaa kan qalin warqado halka dhiman mashkaada waxa leeyahay maxaa hebeladii kale ragga xisbiga kale shabaab keeni balas kuma qaldana haddii su-aashaan si kale kuu weydiiyo nidaamka xisbiyada ee Somaliland oo muddo lagu soo caanamaalay dadkii waxay leeyihiin xisbiyo beelaysan bay imika noqdeen oo beelo ku salaysan oo sidii la rabay iyo mabdii loo sameeyay baalmarsan taasi ma ku muuqata adiga ha yaa eedare su-aashu ma xisbiyada beelada la yimid dadka beela ka dhigaya mise dadka xisbiyada u diidan beela ka dhigaya imanaysa waa dood dhex taala anigu waa aragnimadayda waxaan qabaa xisbi kasta hadan kastoo xisbi inuu xisbi national jeceliyo oo nina qoran ku wada xisbi laakiin waa aragnimadayda dadkeena wax walba ka horreysiinaya qabiilada oo xisbigii haddii imika adiga cabdisalaan herri aad furtay TV la odhan maayo waa TV qaran waxa waa ki reebel xisbigii marka nin loo magacaabo waxa ka dhigayaan dee inuu qoriyo waa fenomena in hortaagan oo population dadkeena aad u dhagan waliba laba qolon islaha way ka saari doonaan iyaba imika taas ku sii bantaa oo qurba joog oo halkii ay baasha ka baabilaan qabaad xagga ay ka timaado iyo dhalinyaradii imika koraysa tacliimin tahay oo iyagu way necbin qaaradii laakiin waxa haysta dhibaato kale si uu inta markuu imika jaamacad ka baxo waxa laga yaabaa shaqayn ama shaqada ku yaraato oo dib shaqeeyo u qaato waxa taageero family-giisi hadduu xamso waxa taageero family-giisi hadduu gursado waxa taageero family-giisi marka tacliintiisa dhanba ka dhaawacanto ila insurance-kii dawladda mujtamaca kala ma haysto inka insurance ma haysto baadina ma hayo oo uu toos u taga ma haysto marka wuxuu ku dhibad garoobaya markasta family-gi ninkii isagoo mutacalima oo koray waa dhowr fatira ayaa haddana wuxuu ku yahay 50% reerkii marka dadku hogaamintiisa waa dhaawacantay marka dadka xisbiyada ka dhigaya qabaa'il waana marxaladii ku gudbi doono laakiin mudane madaxweyne maanta taladii adag gacanta ku haya kala qaybsanaantaasna adiguba waad qirtay inay jirto maxaa kaaga meel yaala horta waxaan aaminsanahay nin walo madaxweynaha dalka soo noqday ama siyaasad soo hogaamiyo inuu doonayo inuu dadka saara qabyaalada ana wadada wanaya waxaana jirta waxyaalo waqti dheer qaata baabiintooda culture-ka
marka waxa iga meel yaala waxaan waayay arag waa u sheegayaa intaa badan dadada waa soo faaxay soo jirtay in aanay qabyaalada meel lagu gaaraynin iyo kala qoqobnaanta oo aynu u gudubno isku mid ahaanshaha anigu intaan joogan aan taa ku dadaali doono tusaale ku siinaya imika xisbiyada mucaaradka tartamayna anu markaan meesha wadba waa u yeedhay 3-4 jeer halka dad badan waanu imika dood marka timaadeen maalintii aan xilka la wareegay waxaan ku oray waxa igu waajibay inaan ku jiibsado wali marka wax la qaybinayo qolada aniga dooratay waxaan haddii la doodana waan qabanaa talaabada qaaday laakiin ragga iga soo jeeda uma weli dood bay ka qabaan waa tiriyee waan ku jiibsanay maad fulin yani waxay yaraysanayaan talaabada qaaday Soomaalida waxay tiraahdaa laba nin weligood isma fahmaan laba nin walaali waa nin hodana iyo nin faqiira kan hodankii waxay wuxuu tiriyaa wuxuu bixiyay inta qaalmood uu siiyay inta goro uu siiyay kana wuxuu tiriyaa intuu qaday imsaha ma qaday oo walkay soo yiri marka waxa laga yaabaa mucaaradka inuu tirinayo inta dhibaato isku tirsanayo ana waxa laga yaabaa tirinta talaabeen qaaday marka doodaas sidoo jiraysa laakiin aniga waxa waajibay inaan mar walba ninka iga soo horjeedo ee aan dalka wadaagay ee aan hogaaminta wadaagay ee ila dalka wixii inaan siiyo tixgelintiisa qadarintiisa iyo dhageysiisa oo maxaa loo yaala oo ka tala qaato isagana waxa ku waajibay inuu inta lagda soo talaabsado marka anigu intii waa ku dadaalaya haddii ku dadaal waayna adigaaba intilaamayo waan ku raacay حزب خير بولي خير بان كلامه حزب جوا ورشين دورة ومدحبني ورشين دورة ومن ندى أنت تصير في وقت أي مدرسين راح تكون أي خير كلها في معي مركا خير كحزب يا وقت جيس أيوب بالورشينية وأنا وحنا خيرة جورمن نقول إيش مركا حزب سوق وقتك سقاطه حزب هذا جو أنكره مركا قليها ولا لها وضع waxaad leedahay way ka hor dhacayaan maya waa soo dhaweynaya xaqna waa u leeyahay nin wal oo maanta yidhaahdo xisbiga ku tartamaya murashax soo socdaanayo meelo badan baa xisbiga ku tartamaya gudoomiyaha lagu tartamaa madaxweynenimada ayaa maalinta qolada dowladda salaam ilaha la sii qorsheeya oo lagu tartami doona golay dhaxal lagu tartami doona kii fulinta lagu tartamaya xisbiga waa doorasho joog markaa diyaar laga bari maayo diyaar markuu xisbiga soo hawi soo dhamaysto goormay noqonaysaa markaa marka shirka xisbiga soo eelaamiyso ila go'aamin maayo waa laga tashanayaa mudane madaxweyne marka la eego arrimaha Soomaaliland muddadii aad xilka haysay arrimaha ugu waaweynaa waxa ka mid ahaa DP World iyo heshiiskeeda iyo saldhigga military ee Imaaraadka oo dawladda Soomaaliyana dood xoog leh ay ka keentay horta labada hawlood haddaynu kala qaadno DP World iyo dekadu way socotaa tii saldhig wax ka maraysa way socotaa way saldhigga waa ka heshiinay waa ka kareenay hawsina way socotaa waana Somaliland iyo dawladda Imaaraadka Carabta cid saxad muqsiso saldhiggu marka laga tago dawladda Soomaaliya oo dabcan saynu ka warhayno aad uga hadlaysay dadka ka faalooda arrimaha ammaanka ee gobolka waxay tilmaamayaan sidaan filayo madaxweyne inaad ka warhayso in khilaafkii ka taagnaa wadamada khaliijku ee ku saabsanaa dalka Yemen in iminka Soomaaliland ay qayb ka noqonayso marka saldhigga la furo taasi ma ku muuqataa adiga adduunka oo dhan tartan ka dhaca dadka uu saameeyo iyaga walba adduunka oo dhan waxa saameeya tartan ka dhaxeeya Ruushka iyo Mareykanka meel walba adiga arkaya Suuriya waxa ka dhacaya oo la isku haystaa meesha Suuriya Mareykanka iyo Ruushka ilaa inta aad soo jirteen waxa socdi Cold War dadka xoog waaweyn ama dhaqaale ama xuduud military ama ideology xoog leh way saameeyaan adduunka waana isoo saameeya marka khilaafka khaliijka iyo ka Ruushka Mareykanka ka dhaxeeya iyo ka Afrika iyo Carabta ka dhaxeeya wax waliba way saameeya qofka waxa laga rabaa inuu isagu dantiisa la ku jirto ee dalkiisa u dana mustaqbalka fog oo si halkaas ah roon way wixii dhan adduunka soo sameeyay waa ka dhaxda maarata marka Soomaaliya danteeda mustaqbalkeeda waxa ay u wanaagsan iyada ka tashanaysa
كل ما هالك أيضا مودنا وين جالس تدكده inkastoo ay jireen dad doodka keenay oo xisaabta siyaasaddu ka mid yihiin haddana waa la sheegay wixii lagu bedelanayay tan saldhigga maxaa ku bedelateen markan waxay dhameysano ila buras baa noo socday ayaan sheegay waxa ku bedelayno waxna waan ku heshiin waxna waan noo dhimay ciidina heshiiska ay wado iyo hawshu markay u socoto deemidii ma bandhigto marka waxaan ku sheegay inaan warinta ka heshiinay inaan saldhigga kareeno inaan mashaariic iyo hawlo badan ku jiro markay noo wada dhamaadaan miidiya waa noo soo bandhig laakiin imika inaan ku heshiinay oo barashadaas oo hawshaas socoto ayaan ku sheegay ta kale waxaad ku celcelisay Soomaaliya iyo ay Soomaaliya diiday iyo ay Soomaaliya diiday soo fargelisay taa ku dheeraan maayo de Soomaaliya haddii ay tirna afku iska xumayso colaad bay korarsatay anagu horumar iyo wanaag baa loo doonay dadkooda waxa ay qabsanayaan horumarna waa ugu baarkayna tusaale ku siinaya imika dawladda Imaaraadku boosaas u joogtaa Soomaaliya dekedooduna way joogtaa waliba ciidan ugu taabarta amaankooda Kismaayo waa joogtaa Xamarna waa joogtaa bal waxa deked ganacsi iyo hawsha taliga ee berbera loo yiri ma iman karaan marka hore kaba soo qaadinay awood leeyihiin qolada xamar ay ku joojin karaan sabab noqonaysa ha noolaan Soomaa laba iyagoon awood lahayn waxaanu awood lahayna soo godoon ka horreysay bisliya xubaan marka tiraada waxa xoog qaran tiraada waa kaalad galabayana Soomaha godob iyo nacib kaba dhaaf waxay geeyeen meesha golaha amaanka bana waxa la leeyahay isku doona walaalo war soo baahna iyana kala tag inaad lafahaaga dhaqaalo u hesho oo shaqaystaan golaha amaanka loo geeyay kalgacaylkii 60kii iyo dawashii jirtay iyo inta imika la soo raashay tobaado walaalo war soo baahna iyo halka tagaya soo boqol sano cadaawad faarad mu abuurin wax kale kordhi jiilkan iyo ka maqla iyo ka imika dhashay iyo ka jooga colaadu ka qaada boqol sano midood xawar talaabada qaaday reerka taliya marka colaadu bay abuuran kuwaas markii arrimahan ay soo baxeen madaxweyne waxa sheegteen inaad ka baxdeen wada hadaladii Soomaaliya kula jirteen wada hadaladu marka horeba intii aanad xilka qaban waad ka warhaysay may ahayn Soomaha qaar Somaliland iyo Soomaaliya ka soo go'ay waxa ay qaar beesha caalamku ay ku talisay horta tala la qaatay oo Somaliland u tahay weey Somaliland madaxweynaha iyaga isaga kuma qaato tala aanu kala qaano umada u bandhigay baarlamaanka dhaqanka axsaabta mucaaradka warka tashan markii arrinta la keenay 2012 aanu hadalka galalay hadalkii waa la galay wax midho badan sax muu dhanin laakiin wuxuu ku ahaa oo in kana bini'aad buu kala sayay si kasta isu diiday wax la waraysan bini'aad hadii kale istilaya oo dhimanaya oo istilaya isku dhimanaya marka waxay ahayd xarga loo jeeday shacrawi xarga ayuu go'in ayuu horta ahaa وانا عقل imkada aan leeyahay dadku inay hadaan u baydu jirtaa oo hal wax lagu dhameeyo marka isugu taa ku dhameeyo marka kunti ilaa xisbigan waa kulmiye dawladda kulmiye isbedeshay saacad xisbiga socota wada hadalka anagu waxaan ka wadnay bal hadda iyo go'in waxa wada ka soo martay anagu tii taagan oo golba oo la warbaalkan hadalkan ma u yaala faa'iido ma ka dhignaa wax ka wada hadalada deeruha oo la balansan yahay waa tan la yiri baba jirtaan maxaan kala hadlay berbera maamul kirti baba leeyahay tan yurad waxa loo arriman say u nool hal xidh berbera golaha amaanka taga ninka halka ay la maray maxaan ka hadalaa adaan ku weydiinaya haddii mudane madaxweyne beesha caalamka oo markii horeba fikradan lahayd ay mar kale idinku soo noqdaan ay yiraahdaan wada hadaladii ku soo noqda ma yeelaysaa mar walba iyadoo caalamku oran qofka si naftooda war ma hadalaa bini'aadam hadal ku dhaqmo oo gol hada laakiin waa hadalku deesh shuruudiyo wuxuu yeelan doonaa maxaan waxaad ku hadlayso qofka aad hadlaysa maxaan wax badan baa la soo diidaa hadda laakiin waa hadalku mar buu furay bini'aadam marna ma nihin dad oran ay loo hadli maayo heshiisyadii hore mudane madaxweyne waxyaabaha ku jira waxa kamid ah in la wadaago tusaale ahaan maamulka hawada maamulkii hawadana sidaynu ka warhayno muqdisho ay kala dhigay
maamulka hawada marka la leeyahay waa Soomaaliya iyo Somaliland oo la isku qaadayo arrinta qolyihii dhexdhexaadinta markii hore idinkaga jiray iyo dawladihii wada hadallada qaban qaabiyay ma kala hadasheen dacwadda waxaan u geynay halkii la geyn lahaaba hadda ay ka tahay UN ka qoladii dhexdhexaadinaysay oo marna Turkiga la joogay heshiiskiina waa la hayaa waa laga bareen وانا اقول لك هذا الكوا كسعودة ما انت وزير الخارجية wuxuu joogaa Nairobi arinta looga yahay marka nin waxa ku wada hadashayna wada saxdeena caalamku in jooga dafraaya oo diiday wada hadalkiisu ilaa uu aqal kala keeno waxa ka mira hadii caalamku wada hadal waxaan oranaa waxa iyo waxa san horta waxa laga bogsan wala garan hatta haduu isagu dhahaa marka hadal waxa la oran wixii hore gashay ka saxdii والله هذيك لو وان كلها هذا واحد دونا عن يلو تقول هذا كلام هاي مدن مدحوين مددي أدحلك هيسي إسكوري ماضية كدعي حد كان سومالان يبنتلان إسكوري ماضية ده محاسو عسبونيسي إسكوري ماضية دي إسكوري ماضية هوران مالها معيدا كينا كبوري ميرو دقنا مير كيف تقول كذا صدق على كلام wararku waxay sheegayeen ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland inay isku dhacaan way jirtay bishii January February lixdeedii ciidankaygu inuu ka guuray Somaliland gudaheeda goob kamid ah oo Somaliland gudaheeda meel ka badan oo agdishay way jirtay qaylo badan oo ka yeedhay Somaliland Puntland oo ay hawada ugu soo duusheen wana ugu soo xadgudubteen imikana ay wari ka wadaan oraha caalamka iyo gudahooda dadkan lagu aablo dagaal oo iska celin أنا تام قبض ما ندورين كما نحد قدين أنا واحد تاجنا قرطة سومالا حد كيدي واحد كإنجليز كيو تغيروا كلاس سمستين وعالم كله نوكسوني هاي أفريقيا كل سنتين سومالا ناس هسي شكله قرن كتي أنا سومالا جديد نكتير مال بنك جوري مال كلامته ويتشرا ورالينا قنصدين إن مع المرحبا كلعان شغال غير كذا أمويرين إلا إما كان أي قرى بطلان سوماليا شارك عنها ولا غير مقدر حيواناته أي رئيس بيه قريب ذا كليه ودوس واحد متين وحنا نسكو فهم سنين حقنا كسو واحد أنا واحد كي سوماليا بان كشرها ولي بل نحن كنا تربحنا مركي ولا غيرنا قوم صدنا أي كأرنتا أدوق غيرنا ما بنا رغينا كي يسكتون ما أنا أرحت كيبا أنت أنا وجرا وأنا سؤالنا كوانا وحلا محاق وستة ولا غير ما تدرن كله وأنا سؤال لا يحب الوجرا سؤال لا أنت صار واحد وأنا حد كل وذوق هي سؤال لا هي صومالي ترى يقول حي محل قصة وش أرش اللي سكوا أفكار لي مدن مدحوينا مركز كوسون قلنا رماه الصومالي الآن سيدات كور هايسو waxa qabaqaabadiisu ay socotaa shir beelaha qaarkood ay ku baaqeen wana beelaha saluugsan saamiga ay ka heleen dawladda shirkaas aad u aragtaa shirkaas oo dhoweey Soomaalidu waxay ku armaashay markii wax garow shirtaa wanaag ma ka soo bax cidii shirayso waxa ba ogolayeen dastuurka dadku inay shiraan iscabraan ra'yi cabraan marka shir nabadeed xaqbalin waxa ka tashay waxay qoonsanayaan haddii dawladda aniga waxay ka qoonsanayaan xaq bay u leeyihiin waanu wada hadli tawbiixi aan ahay ha soo ururiyeen taladooda waanu simanay waxay ka talinayaan ay u dadaalayaan waa Somaliland wanaageedu haddii cadaalad tirsadeen daro waxa ay ku garhalaan waa loo garaan waxa ay qalad ku fahmaan waa la soo sax waa si wanaagsan waana saan ku soo caanan maalay balaayana ma arko marka xubno dawladdaada ka tirsan ama adiguba shakhsiyan ma laga yaabaa inaad shirka ka qayb gasho oo aad ka garanto cidda ay ku casuumaan yaga xaqor cidda ay ku casuumaan ka maar waaya dawladda in badan oo kamid waa isku beesha marka inay badan loo dhigo ayuu barnaamijda xaq u leeyahay cidda kale ka maar waayaan xal oo diid in balaayaan jirna garaacama mudane madaxweyne arrimaha kale dadku ay aad uga qaylinayaan sicir bararka kamida dhibaato weyn baa ka taagan
tallaabooyin baa qaadeen dowlad ahaan ma ku filan yihiin ilaa imika tallaabooyinkaasi ما تلاوي كوفلا هورشا سعر بركة اللي قلت بيني هو الله قايمه من هو أقوانية فرصة من نوع ريسورس أما هو نقاري تي فرصة إيه حرفة دي أقوان توان بروني وأنا وضع ملو عمي شوكته هذا واحد وحلو بهذا تي نقاله إن سوقي نقالو كم خاصة أنا وأنا كقابلني تنيرد إذا أوجد dalka sicirkan laba lacag iska rab carday waa doolarkii Soomaaliya shilin marka doolarkii waxa loo baahan yahay in dakhli badan dibadda la soo xiray doolar la helo oo ama dibadda wax laga iibiyo ama kaalmaha lagu helo waa in doolarkii dalka la soo geliyo saadu tahay xoolo wax xiran yihiin ay dhoofin jir abaarna waa dhacna way tira yaraade waxa dibadda aan u dhoofinay waxa kala badan waxa dibadda ka soo iibsano Soomaaliland ilaa fanicilka lagu fadhiyo iyadoo geed qodax leh ونسودشنا واحد في هذا حوله بهاي حولنا باب بعصارا أبارو أكثر هذا واحد كلمة دوف اشتراك وإحنا نسوق على تذكر دي بدأ شغل عكس صدرها الرياض سوق قوية والعقد بدنا تينا قاد برسي سنة وهبي والب صدق بقولة كون أفر بقولة كون بدر كبه ومولي وضع بعم مرينه أنت سوق على قصر فيها بيك إيه وصادق وصل لوج ديا باش قاد كل شيء marka dhibaatooyinka dhaqaale ayaa u jiitabaya sicir bararku suuqa markii la sahamiyay meel kasta oo ama ganacsada waaweyn oo si fiican u shaqeeyo runtii aan uga martabayno dadka sarif ka shaqeeyo dhan shirkadaha waaweyn oo xitaa sistemyada qaar bedelay loo filayay inuu saameyn ku yeesho sicir bararka waa laga dhameeyay inta imka u dhimanay waa markii u horeysay oo banka Soomaaliya arool bayda hal sariftaas maray waxa la tagaya inuu baanku baankii intaas ka dhigay waa runtii suuqa garaacada shirka itaalkaas u leeyahay laakiin maamulkiisa imika iyo wixii laga qaban lahaa cilmiha waa la sugayo waa la isla ogoliyay laakiin madaxweyne inta ay taagan tahay sidaad adiguba sheegtay in ay kala badan yihiin doolarkii Soomaaliland soo galayay iyo kii ka baxayay sidee xal loo helayaa dawlad ku jira dhibaatada ilaa shaqeynayna wax dhoofinayno ama jaadkan la cunayo la yareeyo oo aanu iska ilaalino lacagta wax baxay wax sokeeya dhibaatada ku jirina waa qaacida rasmi ah arrinta saadka ayaa ka mid ahayd arrimaha loo arkay inay xal keeni karayso tallaabooyin baa la qaaday dadka dhaqaalaha ka faalloodaana waxay sheegayaan saadka iyo adeegyada kale la midkii inay adeeg u yihiin oo iyagu aanay sicir bararka waxba ku lahayn taa ma garawsateen iminka horta waxaan la yiraahdaa dhaqaalaha sida suuqa horti waa waxa la taaban kareen tobanin oo imka suuqa horta ku professor aad u yeedho dad meel ku dhufanay waa waxaan dhamaano alaabas saan hadda saan waa qaar baa xiraan gacan looga imaa maamusha marka kolba de meel baa loo bedelay halka hadii saa loo soxo waxba kala yaraanaya saadkii waa la bedelay su'aashu waxay tahay waa laga yaabaa in waxa ka taray oo uu istaagay baalkii meel intii baalkii la bedelay ee joojiyay $100 dadka qaarna saad qabtaabay qabaano ma saameynayna laakiin waxa laga xaqiijin lahaa hadii imika anu waa hayna lacagtii suuqa galana doolarka ahaa ayaa la garan lahaa inuu saad ku saameynayay inaanu saameynin waayo imika suuqa siisi u socdaa wali wax ma hoos ma dhicin mudane madaxweyne dawladihii ka horeeyay dawladdaadu way cusubtay dabcan waxa aad loogu dhaliili jiray dhinaca musuqmaasuqa dadku aad bay uga qayliyeen xisbiyada mucaaradkii way ka hadleen welina ma jiro shakhsi keliya qaar xilka laga qaaday way jiraan laakiin shakhsi keliya oo maxkamad lagu soo taagay oo loo xidhay tusaale noocee bay noqonaysaa markaa يا الله هل هسرعين دولة أدوية عصبت يولي تلام قاعد وشكتوا وحن شونا دولة وراك هذا يا مدحون يكون هرب من كتاب كره أرتي ذا كلام هذا لو برود بتشوفه وأنت دراسة دي لتشوفي مسقونا واتشره ماله بلادك هو كتيره ولا رضق على ما أول مرة بعض مركان رضق على إنه وأنا جوعان وحيال بدنه هل كان الموسيقى كوريا روجها وموسيقى أبورية mar hadduu faqri jiro musqro waa jira مثلا
ninkaad xil dibteedkaa yahay ee laga yaabo bishaaraadkiisa inay toban cisho ku fileen gurigiisa sad musuq way ilaalin karaysa marka tabartaadi qofkaa tiri ii ilaali wax baankaa budu dhiibtay lacagta ilaa waatay bishaaraad saana waxa laga yaabo toban cisho hore inay ku dhammaato dood baa ka taagan waxuu musuqay mise lafiisa uu bakti gaaray marka si musuq loo yaro waxay baanta horta marka hore in la daryeelo shaqaalaha si shaqaalaha loo daryeelana waa in dhaqaalo badan la soo saara tiina waa hawl badan marka waxaanu ka gelaynaa xagga farsamo ahaan in loo yareeyo musuqa hebel u xirma mudane madaxweyne hadalkaaga hore waxaad ku dartay in qurba joogtu waa sidaad hadalka u dhigtay ay qayb ka yihiin dhibaatooyinka maanta jira iyo kala qaybsanaanta sidaynu ka warhaynayna qurba joogtu mishiinka ugu weyn bay ahaayeen markay timaado doodaha Somaliland sidii caalamka loo geyn lahaa iyo sidii loogu ololeyn lahaa iyagu waday qorshaha kugu jirta inaad soo booqato wadamaday u badan yihiin qof waliba shariix khayr buu leeyahay qurba joog dalkan inta badan iyaga taray waxay geystaan iyo waxay taraan baa badan laakiin waa biraadiyo dadalishoodu weelay qurba joogtu dhaqaalaha dalkan iyaga dhaqaaji ilaa imkana iyaga masruufa dadka badankooda haddii ay aqoonsi caalamka taana iyaga oo aqoona oo doodo wax qora marka qaranka tiir weyn bay u yihiin baa mashruuca dalka ama loo shaqeeyo ama ha wareega mishiinkaana iyaga wareejiya oo shirkado dhan iyaga abuuray laakiin qurba joogta qayb kamid ah oo negative oo jirta qayb kamid ah oo dhaliile oo aan iyagu waxba shaqeynin halkan u yimaada campaign iyo qoroqoro iyo rabshada waa jira marka la canaanaya canaantu inta yar baa la canaanaya dhibaatada keentay intii badida wanaagga wada halkeed jooga qurba joog waa qayb weyn oo siyaasadda oo hogaaminta oo dhaqaalaha oo laga maarmo waana u tagaya waana nuskaashada ugu dambeyntii mudane madaxweyne arrintii tahriibta iyo dhibaatadeedii weli waa taagan tahay meelaha ugu fara badan ee dhalinyaradu ay ka baxaana Somaliland baa ka mid ah iyadoo weliba Somaliland ay gobolka kaga tilmaaman tahay xagga nabadgelyada iyo horumarka dhibaatadan xaggee ka socotaa faqriga ninku hadduu nabad haysto nolol buu doonaya helo karo ama gabadhu qofkii nabad u haysta laakiin markuu shaqana waayo dhaqaale naftiisa ku dareeray carruurtiina u waayo dee qofku isagoo qoys mu dhaw dhaqaaqaya dadka Somaliland shaqo la'aan baa haysa waxaa haya saboolnimo fara badan bableesha kiina uu koraya aad u balaaranaya dhaqaaleyna uu yari marka de waa caadi qofkii ilaa lagu hayn karo ma nabad baa teesay soo toos waxa kale oo si dhiirigelinaya social media maanta oo qofkii noloshii wuxuu arkayaa meel kasta adduunka say tahay Soomaalidu tagaadi iyada laacda xoolo iyo warka abaar jooga waxa laga yaabaa kaaga daray badan halka roob deedo ka muuqdo dhaqaatiya marka qofkan noloshaas uu raadinaya ama tu ku dhow ama barkeedu helo marka qofkii kuma hayn kartid nabad baan ku hayaa iyo waano way ka xog weeraad waxa u baahan yihiin in talaabooyin loo qaado dadka shaqo lagu abuuro tiira weli dhibsan ku jira waa in si kasta gacmaha la isu geeyaa in shaqooyin waaweyn dadka ku joogsan loo abuuro tiina weli mudane madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaasna waxaa ku dhan waraysigan oo magaalada Hargeysa aan kula yeeshay madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baad u mahadsantahay